gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Mayre Makaraan ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka amniga oo looga hadlayay amniga gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay ay amni darro soo wajahday magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Mayre Makaraan ayaa dardaaran siiyay laamaha amniga ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe sidii ay u xoojin lahaayeen amniga maadaama maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Jowhar ay soo wajahday amni darro. Markuu soo dhamaaday kulankan amniga ayaa waxaa saxaafadda la hadlay taliye ku-xigeenka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle Cornel Xasan Kaafi. Inta la socotaan shalay magaalada Jowhar waxaa ka dhacay qarax la fishiliyay runtii oo sidii argagixisadu ay rabtay inay u waxyeelayso bulshada ku dhaqan caasimadda runtii uma dhicin. ilaahan ugu mahad celinaynaa in qasaarihii iyo dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka inay gaarsiiyaan in ilaahay uu dhinac marsiiyey mahaddaas ilaahan ugu mahad celinaynaa. waxaan kaloo u mahad celinaynaa shacabka iyo ciidanka muxuu ahaa arrintaas ka shaqeeyey in la fashiliyo. runtii saa la socotaan dad badan waxaa laga yaabaa inay u fahmaan in qaraxaas sidii loogu talagalay argagixisadu ugu dhacay ma dhicin. qaraxaas markii ay magaalada soo geliyeen muxuu ahaa isku dayeen inay shacabka ku qarxiyaan isla markii waa la ogaaday waa laga sikiyey dhammaan dadkii hareerahaas joogay ee ku ganacsanayay ama ka ag dhowaa ayadoo lagu howlan yahay sidii muxuu ahaa qaraxaas loo furi lahaana qaraxii wuu dhacay laakiin dhaawacyo yaraha jiro wax dhimashaa ma jiraan alxamdulilah. waxaan kaloo isla shalayba bilownay shirar amni oo madaxweynaha jeergaraynayo dhacay awgood inaan howlgallo ballaaran aan bilowno muddana socon doono runtii aan cayinayn wayna bilowdeen oo shalay iyo maanta iyo waqti walba waxa lagu guda jiraa sidii howlahaas loo qaban lahaa. runtii waxaan rabnaa in la iska kaashado sidii amnigan magaaladan iyo magaalooyinka kale ee dowlad goboleedka Hirshabelle looga difaaci lahaa nimankaas manaxayaasha ah oo runtii hadda saa la socotaan targetkooda uu yahay inay shacabka naftooda iyo hantidooda iyo ay burburiyaan. wixii Jowhar ka dhacay waa ogeedeen wax dowlad lagu beegsanaa ma ahayn. runtii ciddii lagu beegsaday waxay ahayd shacabka oo hantidoodii khasaare ballaaran lagu gaarsiiyey. beledweyne wixii ka dhacay waa arkayseen xarumo dowlad ma ahayn. isbitaalkii dadkii ay ku jiraan la qarxiyey goobihii ganacsiga la qarxiyey boqolaal qof la dilay oo shacab. marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka ku dhaqan Hirshabelle inay ogaadaan cadawgaas mid ayaga naftooda iyo maalkooda khatar ku ah inuu yahay dhammaanna qayb laga wada qaata sidii looga hortagi lahaa. dowladda keligeed kama shaqayn karta inay iyadu wax walba qabato. dowladdu waxay dowlad ku tahay waa shacabkeeda. waxaan leenahay ha la iska difaaco ha la iska dhiciyo waxaan waa wax muxuu ahaa dagaala. liibaan cabdulle maxamed liibaan lakiban Somali Cable TV caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Jowhar.